waxaan ummadda reer Khaatumo halkan uga sheegaynaa shirkii ka dhacay shalayto oo ay bishu ahayd 4/2016 magaalada la yiraahdo Caynabo waqooyiga Soomaaliya oo ay qayb galeen laba xubnood oo ah golaha wasiirada ee Khaatumo wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Khaatumo waxay ahayd arrin u dhaxaysay iyaga iyo madaxweynaha oo kaliya naguma metelaan wakiilna nagama aha waana ka xunnahay taariikhna kama nin sidaa darteed maanta oo taariikhdu ay tahay 5tii bisha 8aad 2016 waxaan ku wargelinayaa dhammaan xubnaha golaha baarlamaanka ee Khaatumo inay isugu yimaadaan shir aan caadi ahayn ama degdeg ah muddo 4 casho gudahooda oo ku aadan 9 bishan 8aad 2016 si ay uga wada hadlaan arrimahan aan ku soo sheegay dadweynaha reer Khaatumo waxaan ka codsanayaa inay nagu ixtiraamaan wixii ay noo doorteen ee aan wakiilka uga ahayn annaguna anoo ku hadlaya afka golaha baarlamaanka waxaan u ballan qaadaynaa inaanu ilaalin doono dhowrana doono sharaftooda iyo karaamadooda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.